xarabay maanta inaan tusaale ku soo qaato tusbaxaasi qof kasta gurigiisa kulli tusbax uu ku haystaa tusbaxaygan waxa ku jira 9 mid baa ku jira tusbaxaasi markaas waa qiyaas weeyaan waa qiyaas tiradaadii baad ku eeganaysaa tusaalahan tusbaxa waxaan soo qaatay in aynu bal dhinaca wax yar ka wada eegno adduunkan walaalayaal aad buu balaarayaa waa si camal aynu badweynaynu dul saaranahayo oo leeyahay adigoo badda dul saaran ha isqooynin bad adoo dul saaran inaad isqooyn weydo ma dhici karto haddii aanad waxa dul saaran tahay una ahayn waxa adag oo si fiican u dhisan oo biyi ka ilaalinaya adduunkan wuu balaaran yahay maxay berigi hore xaafadahaaga waxa ka dhacay iyo gurigaaga waxa ka dhacay mooyaane iyo raadiyoga waxaad ka maqasho mooyaane waxba saas lama arkay laakiin imika technology-giiba ayaa balaadhe adoo gurigaaga jooga ayaad ogaan kartaa waxa ka dhacay Australia waxa ka dhacay Mareykanka waxa ka dhacay caalamka oo dhan waxa ka dhacay oo dhan imika meel kasta waad gaari kartaa adoo gurigaaga jooga waad maqli kartaa adoo gurigaaga jooga marka adduunkani wuu balaaran yahay walaalayaal markuu sidaa u balaaran yahay wacwacadkiisa badan maxay damiciisa badan in waqtiga oo lumaya ayaa badan noloshu bacdama ay balaaran tahay inaad dhisaad wax u aragto xogaa isku soo yardhoweyso sina waxay u baahan tahay walaalayaal oo noloshuna ku macaan tahay inuu noloshu hadaf yeelato hadafkuna mid kasta ma aha hadaf horumar leh hadaf ku kaxeynaya hadaf aan dib ku celinayn hadaf horumar ku gaarsiinaya hadaf farxad ka helayso hadaf ay naftaadu happy ku noqonayso marka hadafkaas aad u ogaato wuxuu hadafkaagu yahay su'aasha ugu horeysa ee la isweydiinayo waxay weeyaan maxaad noloshan ka damacsan tahay noloshan maxaad ka rabtaa noloshan si u ekaataa doonaysaa noloshan maxaad rabtaa inaad beerto wax dhowtoro mirahayga aad soo gurato maxaad doonaysaa adigu qof baa ku ran noloshan waxaan ka damacsanahay inaan shaqo helo waxaan ka damacsanahay inaan guri dhisto waxaan ka damacsanahay inaan xaas yeesho inaan guursado inaan awlaad dhalo inaan wax barto inaan dhoofo ninba waxba ka damacsanay noloshan inaan aakhiradeeda u shaqaysto qaar baa kornay inaan maxayd cibaadaysto marka tusbaxaasi waa tiro weeyaan waxa weeyaan uu isku kooban yahay hadduu imika iga go'o uu kala daadanaya xagan imika nuku malihii nolosha isku yareen baciriis kaga dhig waxaan uga jeedaa adduunkani aad buu balaaran yahay ballarka uu balaaran yahayna waxay keenaysaa inuu wacwacad ku bato haddaad maanta dhan wacwacad ku jirtid oo yacni malaayacni kolba meel iskaga wacwacato waqtigaa ku dhacaya waqtigeeduna runtii walaalayaal wuu iska kooban yahay ilaahay cimriga inoo barakeeyo inoo dheereeyo wax wanaagsanna aynu ku qabsano insha Allah waqtiga 24 hour-ka maalin kasta ka baxaysa dhexgeli waxyaalo muhiim ku ah waxyaalaha muhiimka ku ana waxaad ku ogaan kartaa saanimka ku weydiinaya su'aashii ahayd adduunkan aad joogto maxaad ka damacsan tahay maxaad xiisaysaa maxaad jeclaan lahayd inaad qabsato markaad intaa ka jawaabto meel ku qorato waxyaalaha adduunka ka damacsan tahay rabtid waxa ku xigi doona marka stepkii labaad ee ah sidee baan u gaari karaa arrimaha aan meesha ku qortay taas keenaysa inuu waqtigaagu 24 saacadood haysatid 12 bilood haysato sanadkii inuu micno ku fadhiyo inaad isticmaali karto inuu wax ku tari karo anta tusaalahan ku soo qaatay tusbaxaasi waxay ahayd sida meeshiiba 3 mir laynoogu soo diyaariyay inaad adiguna aad marka aad noloshaada daraasayso aad istiraahdo anigu sport baan jecelahay sportiga waqti baan gelinayaa family baan haystaa familkayga waqti baan gelinayaa waan shaqeeyaa shaqadeeda waqti baan gelinayaa naftuna sasha u baahanto nafteeda waxaan gelinayaa waqti naftu raaxay u baahanto nafteeda hadba meel baan iska soo yardaawan koofiga iska soo yarcabi hadba meel baan library baan iska tago buugar baan iska soo akhrisan badan iska hor fariisan yani naftaada hadaad kala qaybiso waxyaalaad qabanaysay adigoo waqtigaaga isticmaalaya oo waqtigaaga hadba meel aad gelinayso walaalayaal nolosha saasi carfi ku yeelanaysaa saasi dhanna ku yeelanaysaa mananacay sidoo kaama hor imanayaan waxyaalaad gacanta ku haysay because wixii baad isku wada dheeli tirto balance yeeshay muhiimada videogani waxa weeyaan waqtigaaga kala qaybi su'aashaas aniga kulli way caawisay koonkan aan ku noolahay maxaan ka damacsanahay maxaan ka doonayaa maxaan ka sugayaa waxaan ka sugayo kulli aanu xagaa fadhiyay ma imanayo weena anigu doonto
marka dariiqii loo marayay qaabkii loo sameynayay waqtigan gelinayay waxaasoo dhan inaan ka fikir weeyey taasoo aan weliba aanan iloobaynin in waxyaalo kale ay nolosheeda ka tirsan yihiin sida faamilkayga ciyaalkayga maxay dahay qaraabadii asxaabtii inaan maxay dahay nolol maalmeedkayga soo rito waxaasoo dhan waa inaan meel bay ku qoran yihiin waxaasoo dhan waxay iga sugayaan inaan time geliyo anigoo nafteyda aanan iloobaynin so naftu qofku naftiisa inuu markasta isaguna uu siiyo timeka xaqa u leeyahay waa muhiim haddii kale dee mashiinka dhan ay wax wadayo adiga haddii aad adigu daasho aanad waqtigiisa siinaynin waxyaalihii kale waqti uma helaysid walow aad waqti u heshana ma enjoy garanaysid marka inaynu waqtigeena si fiican u kala maareyno meel kasta intii ku habboon la geliyo laysku dheeli tiro unbay noloshani dhandhan ku yeelan kartaa videoga intaasaan kusoo gabagabeynayaa waqtigu waa qaali aynu ka faa'iidaysano haddii la idhaahdo dhammaantiin waxaan iin rajeeyey guul iyo gobonimo